السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال كسو دوادا هالكا نقدا ونيسان و تي فيغا عالميغا سومالي سات سيدا سوكال برنامج شدنا يا وحا كدقيسانتان إذا عدا كي بي سي عدكا سومالي دا مقالة سنكلود دقيستيال مانتا برنامج كيغا وحا نكسو قادن دونا وريسيان اللي يلاني ننداليراه ويساقو نكسو بوغدي ستوديوغا نكولا نحي مقالة سنكلود نكالا ليرادا ايا وحا وشرحان يحي حلكا جاقادا mid ka mid ah xaafadaha magaalada St Cloud ee dawladda hoose Ahmed Saeed ee ku soo dhawow TV-ga Soomaalisad iyo raadiyaha ee Soomaalida ee magaalada St Cloud su'aasha ugu horeysaan jecelahay in aan ku weydiiyo magaalada St Cloud waxa aad deganeyd muddo aad u badan oo dhowr iyo 10 sano xilliga aad degtay waxa ay ahayd magaalada meelaan dadka badan Soomaalida laga aqoon bal wax yar maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda dadka Soomaalida qasahan xilliga halkan aad timaadeen dhibaatooyin badan bay dadku kala kulmeen dadka Soomaalidu marka dhibaatooyinka ay kala kulmeen lama oran karo kow iyo laba run ahaantii waxay ahaayeen dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan hadday noqon lahayd xagga shaqooyinka hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada marka dhibaatooyinku aad bay u fara badnaayeen tusaale ahaan waxaan xusuustaa anigu waxaan kamid ahaa dadkii magaalada ugu horeeyay mala xogaa iga soo horeeyay taariikhdu markay ahayd 2001dii waagii qaraxdu ka dhacay wadankan marka waxaan xusuustaa waagaas in Soomaalida laga shikiyay marka waxana rag badan baan kamid ah oo mudaharaad ka qayb qaatay ay soo abuurshay community-ga Soomaalida saaso halkaan aan la hadalay maalintaas saxaafadda iyo journalka muddada aad ka sheekaysay iyo hadda dadka Soomaalida waxa moodaa in uu faraq weyn u dhaxeeyo hadda dadka magaalada waxa lagu qiyaasaa ilaa iyo 10,000 inay gaarayaan dadka Soomaalida waxay ku leeyihiin ganacsiyo waaweyn sida dukaamo iyo waxa ayna magaalada ay ku degan yihiin si mugle bal hadda aniga ama dadka kale oo kula daawanaya barnaamijkan ee aanan aqoon fiican u lahayn magaalada maxaad uga warrami kartaa balbaaxada ay gaartay dadka Soomaalida ee ku dhaqan hadda magaalada St Cloud run ahaantii bulshada Soomaaliyeed waa bulshada ugu badan marka la eego dadka madowga ah run ahaantiina ma jiro tiro maaragtay rasmi ah ama official number ma jiro qof waxba ku qiyaasaa laakiin waxaan isleeyahay 12 kuwa ka badan Soomaalidu hadda malaha 20 kuwa dhaafeen baan isleeyahay hadda asaad ka warqabtona business xoog leh magaalada ku leeyihiin Soomaalidu inkastoo dhexdooda kala ganacsadaan hadday ahaan lahayd dhinaca xilib xalaalada oo u maleynayo inay ilaa 7 hadda marayaan marka ma sha Allah aad iyo aad bay magaalada uga dhex muuqdaan Soomaalidu dadka Soomaalida ah ee magaaladan jooga ama yimaada badan ah dad soo galootiya aanan aqoon luqadda afka Ingiriisiga iyo xirfado badan aan lahayn bal haddaan wax ka weydiiyo maadaama aad ugu dhuundulooshid waa maxay dhibaatooyinka haysta ee dadka Soomaalida maxaad nala wadaagi kartaa oo kamid ah dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta runtii dhibaatooyinku waa dhibaatooyin aad u baaxad badan marka waxaan isleeyahay dhibaatada ugu weyn ee Soomaalidu kala kulmay waxa weeye waxa la yiraahdo language barrier qofkii oo luqadda Ingiriiska aqoon dadka garanaysa qofkii wuxuu noqonayaa qof dhawool oo kale oo qof faraha ka hadlayo noqonayaa laakiin run ahaantii dad badan oo Soomaaliyeed oo wax bartay ama jaamacada ku jira ama college-da ku jira ama iskuulada ku jira baa jira aad bay Soomaalidu u soo kacaysaa laakiin waxaan isleeyahay xagga dhibaatada luqaddu waxay keentay in Soomaalidu ay la kulmaan dhibaatooyin badan oo maadaama qofku hadii aanu aragtidiisii gudbisan karin ama wuxuu qofku marka uu niyada ku hayay dhibaato badan baa la soo darsaysa haddaan Ahmed oo tusaale ku soo qaado sanadkii hore wax ku mashquulsanaa anaga yaraan saaxiibanaha ku mashquulsaneen sida aan u sameyn lahayn hay'ad dadka shaqada geysa waxaan loo yaqaan temporary agencies-ka oo la yiraahdo oo magaceedu yahay friendly staffing waxaan xafiis ka furay magaalada Windback oo la dirisa magaalada St Cloud wax kasta waan hagaajinay contractiga ayaa aad noogu adkaaday maadaama aad tahay qof madow ah oo immigrant-ya waxa weeye wad garan kartaa dhibaatada iyo caqabadaha qofka kala kulmi kara wadankan laakiin isu soo duuduubo anigu waxaan isleeyahay maalin ay maanta Soomaalidu ka fiican tahay marka la eego xagga tiradeeda iyo xagga tayadeeda ma jiro aad iyo aad baan ugu rajo weynahay mustaqbalka Soomaalida ku nool magaalada St Cloud iyo nawaaxigeeda
sida aad sheegtayba luqadda afka ingiriisiga waa dhibaatada ugu weyn ee dadka Soomaalida haysa adigu waxaad ku hadashaa luqadda af ingiriisiga sidaas oo kale waxaa tahay nin qoraa ah oo ku qora afka ingiriisiga wax marka maadaama dad far badan hadda ay aad u imanayaan oo qaxooti ah magaalada sidee kula tahay dadka Soomaalida ah loo caawin karaa inay ku bartaan luqadda afka ingiriisiga waxaan isleeyahay habka ugu wanaagsan ee qofku luqadda ku baran karo waxa weeye in qofku markooda ogaado baahida haysa waayo qofka shakhsiyadiisa ay ku xiran tahay ama shakhsiga ay ku xiran tahay markaad og tahay baahida aad shay u qabto markaas ayaad ku dhaqaaqi kartaa oo wixii aad baran kartaa ama aad wixii qaban kartaa marka waxaan isleeyahay wadankan maadaama aad joogto ama dadka Soomaalida luqadda Ingiriiska waa lagu wada hadlaa laakiin waxay imanaysaa Englishka lagu hadlo waa nooce ma English maaragtay dantaada yar ama biyaha ku cabaysan biya mise waa English tayo leh oo markaas aad bulshadii ka qayb qaadan karto haday noqonayd xagga siyaasadda xagga noqonayd xagga bulshada iyo xaggay noqon lahayd maaragtay meelaha muhiimka ah marka waxaan u baahanahay waxa isleeyahay Soomaalidu inkastoo dadaalayso oo dad badan ee luqadda yaqaanaan haddana isleeyahay waxaan bulshada ku buurinayaa in dadku ay markaasi luqadooda English ka dhisaan oo ay gaarsiiyaan heer markaasi ay wax ku qabsan karaan dadka Soomaalida ah ee hadda qaas ahaan magaalada yimaada waxay ka kala yimaadaan meelo fara badan oo aad u kala duwan dadka ugu badan ee hadda magaalada la keeno qaas ahaan waa dadka laga keeno qaxootiyada xerooyinka ku yaala Ethiopia dadkaasoo ah dad Soomaali ah hase ahaatee laakiin dhamaantood ama badidood ay haysato dhibaatooyin la xiriira xagga luqadda afka ingiriisiga ama xagga qoritaanka luqadda afka ingiriisiga taasoo qofka ku adkaysa inuu shaqo helo bal ma u dhundalooshaa kulley waa aad baad uga warqabtaa arrimaha dhibaatooyinka dadka haysta maxaase nala wadaagi kartaa dhibaatooyinka dadka soo galootiga cusub ee wadanka ka haysta horta Axmed oo dhibaatooyinku iska fara badan yihiin dhibaatooyinka haysta waxaa kamid ah dhibaatooyinka guri la'aanta oo kale maadaama dhaqankeena Soomaalida ama maadaama aan dad muslina sayska family-geenu wuu ka balaaran yahay sayska wadankan oo qofku wax laga yaabaa 10 ama 12 9 meelaha inuu qoyskii caruura u haysto marka dhibaatada ugu weyn ee hadda dadkan cusub ee ka imaanaya Africa ee Soomaalida ay soo degaya magaaladan waxaa kamid ah xagga guryaha taasina markaad si daba gasho waxa ku soo baxaysa in magaalada hadda aan ka dhisnayn guryo ee loogu talagalay family-yo noocaas oo kala ah marka aniga waxay la tahay xalka ugu fiican ee arinta laga gaari karo waxa weeye in Soomaalidu ay cadkeeda dhacsato bulshada ka qayb qaadato isla markaasna la abuuro housing ama guriyeyn dabooli karta baahida noocaas oo kala ah baahi dhibaatooyinka jira oo kale san ku sheegay luqadda oo kale waa arinta ugu weyn hadda dadkaas haysata waxaad arkaysaa qofkii midtan caydh oo kale aan buuxsan karin formkii ama maaragtay aan fahmaynin waxa meesha ka socda dhaqanka wadanka uu leeyahay iyo qawaacidka la raaco marka dhibaatooyinka ko iyo laba lama dhihi karo laakiin waxa habboon dadka Soomaalida inay helaan dad leaders ah oo hogaamiyaal ah isla markaasna dadka bulshada hormuudka ah waxay la tahay inay habboonta inay bulshada hor tagaan oo ay su'aal weydiiyaan oo ay yiraahdaan baahida maanta idin haysata waa noocee marka dadka hortagteen wax laga yaabo dadka dhageysato in baahiyooyin marka adiga ku muuqan ay dadka ku tusaan oo kiraad maanta waxa naga maqan waxaan u baahanahay sidaan u baahanahay marka waxaan rumaysanahay inay muhiim tahay dadka maaragtay bulshada hormuudka ee Soomaaliyeed inay bulshada wareystaan oo ay maaragtay su'aal weydiiyaan oo baahida ay qabaan markaasi ay wareystaan adigu hadda waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida Mareykanka ku dhaqnaa magaaladan muddo badan waxa wararka nagu soo gaaray in aad doonaysid inaad ka qayb gashid siyaasadda wadanka Mareykanka maxaase ku kalifay inaad ka qayb gashid siyaasadda oo aad hadda nala wadaagi kartaa inta igu kaliftay waxa weeye waa iska fududahay oo waxaaba ku sharxi karaa dhibaatooyinka haysta dadka Soomaaliyeed inta ay leeyihiin ayaa igu kalifay inaan maaragtay dawladda hoose aan u ordo insha Allah haddaan booska ku guuleysto waxaad helaysaa gole aad markaasi aad ka soo jeedin karto nacam himilooyinkaaga iyo waxa aad markaa bulshada u qaban karto
maadaama kasoo jeedo dad Soomaaliyeed oo immigrant ee wadankan ku cusub waxa iska cad in dadkeena Soomaaliyeed aan siyaasadda ku cusubnahay marka arrimaha igu kalifi waxa kamid ah inaan bulshada tuso in Soomaali Mareykanimadu ay tahay wax jira oo xaqaaq aan maanta meel laga maraajirin inay tahay marka bulshada waxaan dareensiinayaa Mareykan Soomaalinimada in ay dareemaan Mareykan Soomaalinimadu qiimaha ay leedahay iyo in wax lagu qabsan karo iyo inaad kula tartami kartid bulshada kale ee kula degan ee Mareykanka kula ah marka waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed maaragtay waqtigu uu sii socdaa haddaan noolahay sanadkan kaliya maaha doorashooyin badan baa soo socda 5 sano 10 sano soo socda 20 kilo soo socda marka waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed in siyaasadda la fahmo laga qayb qaato oo maaragtay aan la ilaawin oo lagu mashquulsanaanin Soomaaliya kaliya Soomaaliya waa meeshan ka nimi malihi hal ilmaamo Soomaaliya meeshan ka nimi weeye in wixii aad ka qaban karto qofka Soomaali Mareykan ku qabto waa arrin loo baahan yahay laakiin inaan 100% aynaan attention kana siinin oo aynu fiirino maadaama aynu wadanka ku noolahay maxaan qaban karaa Soomaali Mareykanimadu waa maxay aan ku mashquulo oo waqtigeena gelino marka hadda midna maqaaxiya dadku marka ku sheekaysanay oo kale waxaan maqlaa 100% in Soomaaliya lagu mashquulsan yahay marka waxaan dhihi lahaa bulshoy attention kiina ama maaragtay energy giina oo dhan hasiinina Soomaaliya kaliya ee ku soo jeeday wadankan wixii aad ka qabsan kari lahaydeen dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan hadda magaalada ama nadaawanaya ama kuwa ku dhaqan magaalada St Cloud maxaa jeceshahay inaad fariin ahaan aad halkan aad u fartid dadka Soomaalida hase ahaatee ma kugu jirtaa wax qorshe ah in aad la kulantid ama aad dadka Soomaalida ah si ay ku taageeraan musharaxnimadaada hadda aan waxaan u cararayaa ward ku yaala boqooyiga magaalada St Cloud waxaan ka codsan lahaa ummadda Soomaaliyeed hadda ay daawanaysaa in ay horta fahmaan qiimaha cod bixintu leedahay marka ugu horeysa cod bixintu waxa weeye waa dagaalka kaliya ee wadanka lagu kala baxo wadankan qoryo la soo qaato wax kale la isku sameeyo dadku codkooda ayuu ku meel maraa waxa voting loo yaqaano inay maaragtay xoog saaraan ayaan kula talin lahaa xogaa marmar tixyar anu hadda abweyn baan ku malihi laakiin xogaa suugaanta Soomaaliya waa jeclahay marka hadda noodeer baan hadda meesha ku diyaarsado saddex line ah oo ku saabsan codayntu qiimaha ay leedahay marka waxaan yiri codkaaga awood loo wax badan lagu asteeyay aroortaas inaad soo baxdo doorashada aado ayaa ilaah haboon ee bulshooy yaansi la ilaawin waxaan xusuusinayaa bulshada Soomaaliyeed inaan ilaawin taariikhda iyada ah saad sheegtay campaign-ka ku qaybgeli doonaa waxaan flyers baan qaybin doonaa annagoo ka dhex baxaynin waxa jira book loogu talagalay doorashada oo qofka musharaxa ay u sheegaya inuu raaco oo aanu ka bixin marka annagoo raacayna sharciga ololaha doorashada waxaan isku dayi doonaa inaan maaragtay aan sawirada aan sida sharcigu gol yahay flyers ama ogeysiisyo aan dhijino maalinta doorashadu ay dhacayso inaan dhijino habka loo codeynayo marka macluumaad badan oo nagu dhiman baa jira macluumaadkaana waqtiga ka badan ayaan soo bandhigi doonaa doorashadu waxay dhici doontaa sanadkan bisha 11aad afarteeda laakiin waxa ka horeyn doona doorashada isreebka oo dhici doonta insha Allah bisha August ama bisha 8 dadku waxaan xusuusanaya magaca Axmed Saciid weeye waxaan ku magac dheerahay abwaan kulo ereygaas naanista si lagu yaqaanaa oo dadku waxa laga yaabaa Axmed Saciid kan garan waayeen marka aad mahadsantiin dawashada wateen programka xiisaale assalaamu calaykum aad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa Axmed Saciid oo isagoo kamid ah dadka Soomaalida Mareykanka ee ku dhaqan magaalada St Cloud oo u waramayay raadiyaha Soomaalida magaalada St Cloud iyo TV-ga Soomaalisat dhageystayaal intaanu barnaamijkan oo kala la ku kulmi doono waaniga oo ah Axmed Laari waxaana idinkaga tageynaa sidaas iyo nabad